Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maanta halkan waxaan isugu imaanay shir ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarsare iyo hoggaanka dhalinyarada saddexda xaro ee Dadaab. Shirka waxaa marti noogu ahaa wufuud ballaaran oo nooga imaatay magaalada Nairobi ee magaala madaxda dalka Kenya. Wufuudda waxaa hogaaminayay mas-uulka ugu sareeya ee laanta waaxda u qaabilsan arrimaha qaxootiga dowladda Kenya ee loo yaqaano DRS High Commissioner. Waxaa safarkiisan ku weheliyaa mas-uulka wakiilka ugu sareeya UNHCR ee dalkan Kenya, xafiiska UNHCR County Representative haweeneyda loo yaqaano Madam Caroline. Shirkan wuxuu daaranaa lagu korgelayo baahiyaha ka jira si guud iyo si gaar ahaaneedba xarooyinka qaxootiga ee Dadaab. Waxaa diiradda lagu saarayay qaxootiga cusbaa ee dhowaan kasoo hayaamay abaarta ka jirta dalka Soomaaliya, qaabkii loo dagaamin lahaa, haddii ay noqoto in xaro cusub oo ayaga lagu dagaamiyo la furayo, iyo haddii ay noqoto baahiyaha ay hadda jira ay qabaan sidii wax loogu qaban lahaa, haddii ay noqoto hoy, musquul iyo waxay cunaanba. Mas-uuliyiinta ugu sare ee qaxootiga waxay soo bandhigeen baahiyaha ka jira xarooyinka xilligan hadda aan hadlayno, gaar ahaan maadaama uu socday mas-uulka ugu sareeya waaxda u qaabilsan arrimaha qaxootiga dowladda Kenya. Waxaa inta badan diiradda lagu saaray shirka oo ay mas-uuliyiintii hadlay ay ka hadleen sharciga iyo warqadaha aqoonsiga, sida warqada loo yaqaano kaarka loo yaqaano Alinka, warqada wadada lagu maro ee movement passka loo yaqaano, iyo sidoo kale warqada CTD-ga iyo warqada work permit-ka loo yaqaano. Wax badanaa laga hadlay. Sidoo kale maadaama uu wakiilka ugu sare ee DRS uu joogay, waxaa la weydiiyey su-aal ahayd doorashooyinka mas-uuliyiinta ugu sare xarooyinka waxaa ugu dambeysay ka qabsanta xarooyinka 2013 ilaa iyo xilligaas wax doorasho ah looma qaban mas-uuliyiinta xarooyinka. Marka su-aashaas wuxuu uga jawaabay mas-uulka in haddii exercise-ka hadda socda ee profiling loo yaqaano markuu dhamaado wixii ka dambeeyo in howshaas la gudagali doono, doorashona la qaban doono. Marka qodobooyinka inta badan diiradda lagu saaray shirka ayay intaas ka mid ahaayeen. Si guud baahiyaha ka jira xarooyinka waa laga hadlay. Inta badanna mas-uuliyiinta hadashay waxay ku celceliyeen in loo baahan yahay, maadaama tirada dadka qaxootiga xarooyinka ku jira hadda ay saaid yihiin, in xarooyin kale loo furo dadka hadda si nafas ay ku kala helaan. Waxaa la sheegay xitaa wadooyinkii lasoo marayay in ay inta badan ay ciriiri noqdeen oo dadkii ay ka tira bateen magaalooyinka xarooyinka qaxootiga. Marka waxaa inta badan lasoo jeedinaya in xaro cusub ay dadka kala nafisaan in la sameeyo. Marka mas-uuliyiintii wufuuddii waxay inta badan ayagana sheegeen in ay arrintaas ay u istaagi doonaan waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan ay gelin doonaan sidii baahiyaha jira xal loogu raadin lahaa oo xal looga gaari lahaa. Waxay sidoo kale sheegeen in ay marar badan soo noqon doonaan si baahiyaha wixii la qabtan ay u ogaadaan, wixii dhimana ay ula socdaan. Marka wufuudda inta badan shirka wuxuu kusoo dhamaaday si wanaagsan oo jawi degan uu kusoo dhamaaday. Mas-uuliyiintii si wanaagsan ay u wada hadleen. Arrimihii laga wada hadlan inta badan xagga in lasu garaabay, baahiyaha jirana in nin walba uu dhinaciisa uu ka sheegay. Waxaa inta badan dadka mas-uuliyiinta hadlay ay ayagana ka hadleen dhibaato ka haysato xagga dadkii buufiska helay buufis fursadahan in dib u dejin la siiyo wadamada kale helay, in ayagana dhibaato lasoo darasto beryahan dambe dad fara badan ay hadda ay haysato dhibaato ah in markii ay bixi lahaayeen in lagu yiraahdo adinka kaarkiina mar hore waad ku guurteen, qaar la yiraahdo waxaa tihiin baa double registered. arrimahaasna waxaa la ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaari doono. Waxaa sidoo kale laga hadlay dad aan kibaano qabin oo kibaano uu saaran yahay, iyadana sidoo kale waxaa laga sheegay in xal fiican arrintaas laga gaari doono oo si ay ku dhaceenba ay hore u dhaceen, laakiin hadda xalkeeda
lagu guda jiro sidoo kale high commissioner wuxuu sheegay in loo muddo loo week uu hadda ka shaqeynayo arrimaha sida ay ku dhaceen iyo maartay sida wax looga qaban lahaaba shir aad qiimo badan u ahaa waxaan rajaynaynaa insha Allah raxmaan mustaqbalka dhow baahiyaha meesha lagu soo sheegay in maartay wax laga qaban doono xal wanaagsanna uu noqon doono shaqadaas inay soconayso la ballan qaaday hore inay u socotay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah raxmaan si wanaagsan inay wax walba u dhacaan martidana si fiican maartay ay u dhageysatay waxyaabo badan waxay ballan qaadeen in maartay si ugu wanaagsan xal looga gaari doono marka waxay ahayd maalin aad wanaagsan oo aan dhihi karo fursad dahabi ah ayay u ahayd dhammaan xarooyinka Dadaab gaar ahaan dadka baahanaha ama dadka hadda maartay newcomerska oo hadda qaxootiga ku soo biray oo wali aan maartay si rasmi ah meel loo dajin oo in badan ay maartay madaxda qaxootiga ay in badan ka hadleen